ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba aad joogtay daawada ku soo dhawo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka aad ku daawan doonto xilligan waxaa ka mid noqon doona Somaliland oo si kulul uga hadashay hub ay dawlad Carbeed ugu deeqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iska horimaad halis geliya nolosha madaxweyne Waare oo sababay dhimasho iyo dhaawac ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo war ka soo saartay dhalinyaradii lagu xasuuqay deegaanka Gololey ee duleedka degmada Balcad Mareykanka oo ka shafay Kanadiga qorshe cusub oo Ruushka uu ka bilaabay gudaha dalka Liibiya iyo macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan yaa ka dambeeyay xasuuqii dhalinyarada dhaqaatiirta ahayd ee ka dhacday deegaanka Gololey ee duleedka degmada Balcad intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu waaweyn ee wararkeena xilligan u diyaar garow inaad daawato macluumaadkaasi oo dhameystiran haddii ay tahay markaadii kugu horeysay ka mid noqo saaxiibada halkaani ku xiran oo hel macluumaadyada aan soo gudbino waa 29ka bisha shanaad sanadka 2020 iminkana u diyaar garow macluumaadkaasi oo dhameystiran xukuumadda Somaliland ayaa si weyn waxay uga hortimid hub ay sheegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya in dhawaan dawladda Masar ay ugu deeqday Cabdiqani Fariid wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay inuu aad ugu walwalsan yahay hubkaasi la siiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli ay dawlado kala duwan ee gobolka ah ay dagaalo ay ka socdaan Cabdiqani ayaa hubkaasi la siiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya ku tilmaamay xadgudub ka dhana cunaqabataynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu saaray Soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu eedeyn u jeediyay dawladda Masar oo hubkaasi ugu deeqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo dhawaan ay ka heelisay xiisada kala dhaxaysa dawladda Itoobiya sida macluumaadka lagu helayo Somaliland waxay aad ugu warwarsan tahay dawladda Soomaaliya sida aanay u fulinin cunaqabataynta hubka ee saaran qaramada midoobay ayuu ku yiri qoraalkiisa wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland waxa kale oo yiri waxaan cambaareynaa dawladda Masar oo ku xadgudubtay cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya arintaasina waxay qatar weyn gelinaysaa nabadda iyo xasiloonida gobolka deeqdaasi hubka ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya taageero weyn la garab istaagtay dawladda Itoobiya oo xiisada xoogani ay kala dhaxayso dawladda Masar midaasi oo ku aadan biyaha wabiga Nile macluumaadadaas waxyaabaha ka soo kordha wararka kale ayaan ku eegi doonaa balse markaan iska horimaad ayaa gelinkii dambe shalay ka dhacay deegaanka Ceel Gaal oo ka tirsan gobolka Hiiraan kadib soo istaag lagu sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sii jeeday deegaanka Jawiil oo gobolkaasi ka tirsan iska horimaadka ayaa yimid kadib markii dadka careysan safarka madaxweynaha degmada Jawiil ay soo abaabuleen odayaal ku beela madaxweynaha oo banaanbax rabshado watay ka sameeyay deegaanka waxa kadib halkaasi ka dhacay iska horimaad kooban oo dhexmaray ilaalada madaxweynaha Waare iyo maleeshiyaadka qayb ka ah banaanbaxa kuwaas oo diidanaa inuu Waare uu ka gudbo deegaankaasi isla markaana uu gaaro degmada Jawiil goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen hal qof oo ku dhintay iska horimaadkii shalay dhacay mid kalena oo ku dhaawacmay dhibanayaasha ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen dadka dibadbaxa dhigayay madaxweyne Waare ayaa degmada Jawiil u tagi lahaa inuu xariga uu ka soo jiro mashaariic halkaasi laga fulinayo oo lagu horumarinayo degmada taasi odayaasha banaanbaxa soo abaabulay ay ka soo horjeedeen maadaama deegaanka Ceel Gaal ay doonayeen in iyaga laga dhigo degmo oo mashaariic kale laga fuliyo macda sababta odayaasha Ceel Gaal ay ku diideen horumarinta degmada Jawiil balse wararku waxay sheegayaan inuu salka uu ku hayo aana qabiilay arrimo la xiriira waxa degmada Jawiil hadda ku sugan gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise oo madaxweynaha ku soo dhaweyn lahayd halkaasi maadaama Canab ay ka soo jeedo deegaankaasi wali deegaanka Ceel Gaal waxa laga dareemayaa xiisada waxaana ku sugan wafdiga madaxweyne Waare oo qayb ay ka yihiin wasiirro iyo xildhibaano oo doonaya in arrintaasi xalay ka gaaraan markana aan eegno xasuuqii dhalinyarada dhaqaatiirta ahayd loogu geystay deegaanka Gololey ee hoostaga degmada Balcad xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xasuuq ka dhacay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo loogu geystay 8 qof oo sida la sheegay badankood ay ahaayeen dad xirfadlayaal caafimaadka ah war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya aad u cambaareynayso dhacdadaasi xanuunka badan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa ficilka argagaxa leh ee ka dhacay tuulada Gololey ee hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi oo lagu dilay 8 qof oo rayid ayaa lagu yiri qoraalka xukuumadda Soomaaliya ayaa dhacdadaasi ku eedeysay Al-Shabaab waxaana wasaaradda warfaafinta qoraalkeeda lagu sheegay in ficiladaasi ay ku canbixeen Al-Shabaab si kastaba dadka deegaanka iyo odayaasha beelaha iyo dhalinyarada laga xasuuqay ayaa falkaani ku eedeynaya ciidanka militariga ee Soomaaliya war saxaafadeedka ka soo baxay dawladda federaalka ayaa tacsiil lagu diray ehelada dadkii lagu laayay Gololey ugu dambeyntii waxaa qoraalka lagu sheegay in dawladda amartay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhacdadaasi isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii falkaasi ka dambeeyay
markana haddii aan eegno dalka libiya militariga dowladda maraykanka ayaa ruushka wuxuu ku wadaa eedeyntiisa ku aadan in weli diyaarado uu geynayo gudaha dalka libiya kuwaasoo astaamo kale lagu buufiyo si loogu taageero calooshood u shaqaystayaal u dagaalamaya xoogaga uu hogaamiye dagaal-ooga jenaraal khalifa xaftar oo jooga bariga dalka libiya. Eedeyntaasi waxay imaaneysaa iyadoo talaadadii wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov uu jenaraal khalifa xaftar u sheegay in xukuumadda Moscow ay taageerayso xabad joojin iyo sidoo kale hadal siyaasadeed oo labada dhinac ay gaaraan taasi oo lagu gaari karayo dowlad loo dhan yahay. Eedeynta Maraykanka ee ka dhanka dowladda Ruushka ayaa waxay kordhinaysaa khilaafka 9 sano soo jirsaday ee ka jira gudaha dalka Liibiya. wasiirka wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka ayaa waxaa kaloo uu sheegay inaysan ka hadlaynin warka ka soo baxay taliska ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika, laakiin Andrei Karazov ayaa waxa uu ka tirsan yahay guddiga difaaca ee baarlamaanka Ruushka waxaana uu sheegay in eedeymuhu ay yihiin warar been abuura. dagaalada ka socda dalka Liibiya ayaa soo keenay awoodaha dunida. Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa taageeraya jenaraal Khalifa Xaftar oo bariga dalkaasi Liibiya kasoo dagaalamay si uu qabsado magaalada Tripoli caasimada dalka Liibiya. Si kastaba haatee toddobaadadii dhawaad dowladda caalamku aqoonsaya oo taageero siinaysa militariga dalka Turkiga ayaa dib u riixay jenaraal Khalifa Xaftar waxaanay ka qabsadeen meelo badan. ugu dambeyntii saraakiisha iyo odayaasha dhaqanka ee ku sugan degmada Gololey oo ah deegaan hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa eedeyn u jeedinaya saraakiisha ciidanka militariga ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ku eedeynayaan inay ka dambeeyeen xasuuq ka dhacay deegaankaasi Gololey. ilaa iyo 8 dhalinyaro ayaa la dilay. magacyadooda dhalinyarada la dilay waxa lagu kala sheegay 1 عمر حوتي محمد، 2 عبد العزيز عبد القادر عبد الله، 3 علي أحمد علي، 4 عبد الرزاق عبد الله قابلة، 5 محمد عمر بوره، 6 أبو بكر موسى ماحي، 7 يوسف أيوب iyo ruuxa ugu dambeeya magaciisa lagu sheegay Nuur Xaaji Gaas. odayaasha deegaanka ayaa waxay ku eedeynayaan ciidanka militariga inay dhacdadaasi ay ka dambeeyeen. oo jaamiciyiin ah oo u shaqeyso maxaa la yiraahdaa MCH-ka tuulada Gololey oo Samsung Foundation ayaa shalay waxa uu yimid marqa dad afduuban oo yimideen. dadka afduuban adiga tuutooy kullu bisnaayeen sida dadka goobjooga ay sheegeen. anaga balcada calaamada qarankana way iska qariyeen. calaamada qarankana calaamada ku soo duubteen. marka indhaha way soo tuutii qarankana calankii oo qaranka oo meesha dhinaca ugu yaalay garabkooda calaamado. marka sida dad xogogaal ay noo sheegeen meesha ku taalo oo leeyahay 7 ay ilmaha haysataa la yiri. balcada ka shaqo tageen ilmaha la laaynayo tuulada ugu laaynayo. waa dad balcada ka shaqo tagay oo dad oo jaamiciyiin ah oo ciyaal yar oo jaamiciyiin ah oo ka shaqeeya waa MCH-ka Samsung Foundation oo dhaqaatiir ah. hal ayaa ka mid ah guriga laga soo watay 7 shaqaale ah shaqaalaha Samsung Foundation. MCH gudihiisa laga keenay MCH ayuu jira shaqada MCH-ka ku jira oo fuqaahna u joogaan ayaa la keenay. waxa ku baxay shalay odayaalka nabadoonada ku baxeen. odayaalkii nabadoonada meel loo qaaday meel kale waa kala garan waayeen. annaga dhan juudiyan sameynay telefoonaan dirnay telefoonadii aan dirnay jooharaan wacnay gobolka Shabeellaha Dhexe laga xukumay balcad soo gaareen. dadkaasi ma yiraahdeen oo xaqiiqa ah inay dileen dadka 7 joogo 7 ciidamada dowladda waxay yiraahdeen gabdhaha jooga meesha waxay yiraahdeen calanka qaranka ay meesha ku xirteen meesha la geeyay meesha lagu dilay. ugu dambeyntii golaha wasiirada oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxay ka qayb galeen shirka sida aqlabiyada looga ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda sanadka 2020 oo la kordhiyay. guud ahaan qarashka miisaaniyadda oo gaaraya 646.9 milyan oo ka kooban qarashaadka mashaariicda iyo qarashaadka howlfulineed ayaa waxay kala yihiin qarashaadka mashaariicda oo kordhay ama la kordhiyay 40.9 milyan halka qarashaadka howlgalka fulinta ee dowladda la gaarsiiyay 129.9 milyan. kororka qarashka ah ayaa loo adeegsanayaa sida la sheegay la tacaalida cudurka safmarka ah, doorashada, daadadka iyo sidoo kale xaaladaha bini'aadanimo ee dalka ka jira. waxaa maanta inoo qabsoontay shirkii golaha wasiirada oo daadinayay ra'iisul wasaaraha waddanka mudane Xasan Cali Khayre oo u dhacay si internet ah. maadaama aanan golaha wasiirada aysan kulan yeelanin muddadii hadda lasoo ramadaanka lagu jiray sababa aan ognahay awgood ay ka mid tahay COVID-19 saameyntiisa waddanku ku lahaa ayaa maanta shirka isugu yimid. waxaa kaloo la dhageystay wasaaradda caafimaadka, wasiiradda iyo xirfadlayaal ay ka mid yihiin dhaqaatiir oo warbixin guud
ka siiyey golaha wasiirada oo aanan ka mid ahayn guddiga ka hortagga COVID-19 meesha ay arrimaha COVID-19 ama cudurka faafa uu marayo. waan ognahay badihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo wasaaradda caafimaadka liid ka tahay ama hormuud ka tahay ay aad uga shaqaynayeen. warbixintaas markii la dhageystay kadib dood ayaa laga galay sida wax lasu gacan qaban karo iyo sida maamul goboleedyada ayagana gacan looga siin lahaa maadaama cudurka hadda sida la aaminsan yahay uu yahay mid ku faafaya maamul goboleedyada qaar ka mid a. kadib waxaa la dhageystay wasiirka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda soo bandhigay dib ugu noqoshada maaliyadda sanadkan oo kadib lagu sameeyey dib u eegis mar walba saacaddan la gaarin dib u eegis lagu sameyn jiray xaaladaha isbedelay oo kale qaarkood. taasna waxay wasiirada ku ansixiyeen si aqlabiyad leh. waxaa review lagu sameeyey meelaha u baahan kaalmada iyo meelaha kale ay naaqusku oo ka yimid sida ganacsiga oo yaraaday iyo canshuur dhaafkii dowladda ay u sameysay bisha ramadaan awgeeda. kadib waxaa golaha wasiirada u ansixiyey xafiiska statistikada wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimaha guud iyo agaasimo xigeenkiisa oo ayagana maanta loo soo bandhigay. waxaa kaloo sidoo kale wasaaradda ay arrimaha gudaha ay soo bandhigtay xubin ka maqnayd inay buuxiso guddiga doorashooyinka qaranka oo iyadana maanta loo ansixiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaaleynta. marka shirka oo ahaa mid la kala dheer yahay laakiin waxay muuqatay inuu wasiiradii ay aad uga doodeen arrimihii lasoo bandhigay oo dhan. guud ahaan wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya waa naga intaa warkan warka xigantan ku kulmi doona nabadgelyo.